Asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhawaada markaleete iyo channelkeeni insha Allah maanta waxa weeyaan mucjiso la yaab leh waa miskiinkii amba wiilkii faqiirka ahaa ee 30 milyan oo dollar abaalmarin ku heray qisadiisii insha Allah qisadan horta dad nagu cusub tahay fadlan noo saara youtube-ka subscribe noo share gareeya qisadan wiil bay ku socotaa wadanka America u dhashay oo magaciisa la yiraahdo Abraham wiilkan wuxuu ahaan jiray wiil faqiira oo shaqo hoose ka shaqeeya wiil homeless buu ahaa banaanka ku nool shaqooyinka ugu yaryar buu ka shaqeyn jiray marmarka qaarkood wuxuu ka shaqeyn jiray meelayaasha timaha lagu jaro buu timihii waxaas buu jari jiray maalimaha kamid ah waxaa dhacday isaga oo wiil saaxiibkii israaceen oo wadada socda bay gawaarigii wateen baa joogsaday sida caadiga dadku marka ay dariiqa socdaan ay safar baxayaan waxyaalisi iibsadaan basharaabo kale waxyaalada u baahan yihiin marka qof walba uu degay isaga wiilkii saaxiibkii ahaa iyo wiilal kale oo gaariga la socday markii ay degeen wax soo iibsadeen isaga gaarigu iska fadhiyay isaga markuu gaariga ku haray wuxuu ka codsaday jeebkiisa waxa ku jira $2 oo kaliya wuxuu ka codsaday $2 inay usoo siiyaan kaarkan bakhtiyaa nasiibka lagu ciyaaro amba tigiradan khamaarka lagu goosto ayuu ka dalbaday inay usoo iibiyaan soo gaarigii iskaga jira halka ay dadkii kaleetana ka soo iibsadeen sharaab iyo buskud iyo waxyaalo ay dariiqa ku $1 buu iska siistay uu iska tijaabinay nasiibkiisa kadib waxaa soo baxday inuu tigirkii uu goostay ma uu ku soo guuleystay 30 milyan oo dollarka Mareykanka ninka dabcan wuxuu iska ahaa nolosha hore ku nool basically wuu aamini waayay shaashadihii America dhan baa laga soo saaray ummadii oo dhan baa daawatay dadkii shaashadaha daawanayay marka waxaa dhacday dad badan oo awalkii horeete aan waxba siin jirin aan caawin jirin sida dhacdaba baa iska wala damcay inay lacagtan wax ka qaataan laakiin isagu markii horeete wuxuu ahaa qof iska deeqsi badan oo la cuni karo wuxuu haysto ayuu ahaan jiray isaga oo lacagtiisii haysta 30 milyan ee dollar ku guuleystay baana ku soo noqday isla markii shaqooyinkii hoos u ka shaqeynay iskaga soo noqday iska shaqeysan jiray dabcan laakiin noloshiisu way isbedeshay xoog bay noloshiisu isku bedeshay guryo dhistay hanti buu samaystay waxaa dhacday inay noloshiisu ku soo biday gabar cadaana oo dadkii kamid ahaa TV-yada shaashadaha ka daawada dad badan baa weydiistay lacag inuu amaahiyo uu weydiistay uu siiyay marka inantani waxay ku tiri ganacsigan wala furanaynaa lacagtaad way kuu shaqeynaysaa adoo guriga iska fadhiya lacagtaada kuu shaqeyni anaana lacagta farsamayn doona sidaa daraadeed bay lacagta uga qaaday gabadhii cadaanka ahayd lacagtii bay ka qaaday lacagtii bay iyadu maartay nolol ku samaysatay guriyey ka dhisatay gawaari bay ku iibsatay kadib waxaa dareemay wiilkii saaxiibka ahayna oo la shaqeyn jiray meesha timajaraha uu timaha ka fiiqi jiray baa dareemay saaxiibkii inuu xoogaha mashquulsan yahay lacagtiisii laga qaaday gabigiisaba maartay uuna jirin uu weydiiyay wuxuu dhahay warniyo adiga intaas oo lacag ku guuleystay dhaqaalahaagii ha kuu maray maxaa dhacay kadib markuu fahmi waayay saaxiibkii wuxuu arkay gabar cadaan in isku badan yihiin markasta soo wacdo markasta u timaado usagna dadaal uu sameynayn uu weli meeshiisa iska xaaqay buu gabadhii la xiriiray wiilkii saaxiibkii wuxuu ku dhahay wiilka saaxiibkeena maxaa naga dhaxeeya ayaan tiri ninkuu nagu badan yahay xataa waxba nagama dhexmaan jirta shaqa naga dhaxaysa waanu shaqeeyaa shaqaale aanu ahay sheekacankaasa dabcan markii dambe gabadhii lacagtii bay dhammaacday waxay samaysay ninkii inay khaarijiso ay u dirto dadkan gaangiska oo magaaladii laga kaxeeyo oo la afduubo
markii kadib faamiligiisii baa doodoonay inankii booliiska lala xiriiray yacni subxaan allah waa fidnada marmarka qaarkood ay lacagtu leedahay waa la doodoonay kadib booliiskii wuxuu sameeyey wuxuu arkay inay xiriir ka dhexeeyo gabadhii cadeed iyo inankii lacagta ku guuleystay abraham saaxiibkii baa loo himiday waxaa lagu yiri abrahana ku dambeeyey wuxuu dhaano abrahan saa u doodoonaysiin baan u doodoonaya laakiin gabadhaa bay xiriir lahaayeen iyada inaa la weydiiyo weeyaan iyadaa la weydiiyey iyada waxay tiri anigu ma ogi long time baa igu dambeysay kadib waa la baaray waxaa la ogaaday inay ka dambeysay afduubkiisa naagtan cadaanka ayaa la ogaaday qisadu aad bay u dheer tahay insha Allah waxaa laga yaabaa inta in ka badan inaan kusii caajisno maalinka labaad baan qaybta labaadna soo qaadan doonaa insha Allah haddaad nagu cusubtiin fadlan subscribe noo saara waa mahadsantihiin